وعن أو وناسن داودي الكسر دوادا برنامجنا تكنولوجيا مانتا موضوعنا مانتا وحن كسر قادم دونا هلا بورياش إسبدلوا وين دنيا وهرسودية لك تكنولوجيا سيدا نينك الله يقانا مارك زوكربيرج مسكحدي كدن بس soo bixi aalada sida weyn dunida looga isticmaalo Facebook موضوعنا maanta ayaa hadda isku faaqidi doona Mark Zuckerberg wuxuu dhashay 14 May 1984 magaalada White Plains ee gobolka New York intii uu yaraa wuxuu muujiyay xirfad sare oo dhanka kombiyuutarka ah dugsigiisii sare wuxuu bilaabay barnaamijyo yaryar isagoo lahaa aragti fog iyo hal abuur muuqda sanadkii 2004 isagoo arday ka ah jaamacadda Harvard ayuu abuuray barnaamij loogu talagalay ardayda si ay isugu xirmaan barnaamijkaasi wuxuu noqday aalad aan maanta u naqaano Facebook wuxuu ahaa mashruuc yar balse si dhakhsi ah ayuu uga baxay Harvard uguna fiday jaamacado kale kadibna wuxuu gaaray dunida oo dhan Facebook wuxuu bedelay habkii aan u fikiri jirnay u xiriireynay una wadaagayay nolosha wuxuu noqday aalad ay dadka ku wada xiriiraan ganacsiyo ku horumariyaan xitaa siyaasad iyo dhaqdhaqaaqyo bulsho lagu abaabulo maanta in ka badan 2.9 bilyan oo qof ayaa adeegsada sheekada Zuckerberg waxay noqotay dhiirigelin weyn oo gaaray malaayiin dhalinyaro ah oo iyaguna leh hal abuur fikir cusub iyo rabitaan ay wax ku bedelaan wuxuu muujiyay in guusha aysan ku xirnayn hanti ama magac hore balse ay ku timaado hami adkaysi iyo fikrad waqtigeedii la keenay dad badan oo dhalinyaro ah ayaa markii ay arkeen guushiisa go'aansaday inay bilaabaan barnaamijyo shirkado ama adeegyo cusub Mark Zuckerberg sidoo kale wuxuu qayb weyn ka qaatay kor u qaadista hal abuurka tiknoolajiyadda isagoo maalgelin iyo dhiirigelin siiyay arday iyo hal abuurayaal da'yar waxa uu noqday tusaale muujinaya in tiknoolajiyadu tahay wado furan oo ay dhalinyaradu kaga qayb qaadan karaan horumarka dunida Mark Zuckerberg wuxuu muujiyay in hal abuurka aanu xadidnayn meel kasta iyo qof kasta ay ka imaan karto fikradiisa ayaa noqotay aalada dunida isku xirta qof walbana siisay awood uu codkiisa iyo aragtidiisa kula wadaago dunida inteeda kale waan rajaynayaa mowduuca maanta inaad wax badan ka baratay barnaamijkeeni maanta intaas ayuu ku egyahay intaan midkaan mid la mid ah ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo si aad u hesho internet xawaare sare leh oo aan kala go' lahayn dooro isgaarsiinta jiilka cusub ee Somnet Telecom oo hel internetka ugu xawaaraha sarreeya dunida iyo guud ahaan geyga Soomaalida ee 5G internet si fudud u xulo xirmada internet ee ku habboon baahiyahaaga adigoo garaacaya xidig 544 gees oo ku raaxayso internet xawaare sare leh Somnet Telecom isgaarsiinta jiilka cusub